kadib markaan aragnay dhibaatada soo wajahday dowlad goboleedkii Galmudug inaan tilmaamo iyo talooyin maskaxdeena aanu ka tuujinay go'aansanana inaan uga baqaylin reer Galmudug inaan ka soo jeedino talooyinka ka hor waxaan doonaynaa inaan tilmaamo bixino ayada laftoodu la xiriirta talooyinka aan bixinayno ilaa 6 qodob inaan dul istaagno koow waxaan halkan ka ammaanaynaa kana dhiirigelinaynaa ciidamada ku sugan Galmudug iyo saraakiishooda hay'adahooda kala duwan heer qaran iyo heer dowlad goboleedba si gaar ah waxaan farta ugu fiiqaynaa shaqada wanaagsan iyo fakarka wanaagsan iyo sida uu u fakarayo taliye Mas'uud iyo taliyayaasha ku fakarka waxaan leenahay taliya hambalyo fakarkaaga tolmo waa soo dhaweynaynaa waana ka mahad celinaynaa mana kaaga baqaylayno mahad celinta aad mudan tahay oo Ilaahay ku makaniyay adiga iyo saraakiisha sida tolmoon u fakarayso oo kula midkaaba waxaanu leenahay hambalyo waxaana dareensanahay dad ducada iyo yaqaana waxa lagu gaaray inaad tihiin intaas waa dhinaca ciidamada waxaan kaloo halkan fariin ka siinaynaa madaxda qarankeena Soomaaliyeed madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo mudane Xasan Cali Khayre waxaan leenahay dadku markuu kala abtirsado waxa tihiin reer Galmudug gaar ahaan reer Galgaduudeed waxaana leeyahay qof korkiisa biyo kama hakrado taariikhda annaga qarankeena iyo madaxdeennii baa tihiin waxa badan oo maskaxdeena ka soo burqanaya ma idin wada dhahayno waa idin jecelnahay waa idin ka xishoonaynaa laakiin waxaan ku soo koobaynaa si fiigiina wuxuu soo qori doonaa waxaad Galmudug ku samaysaan haddaad qurxisaan u hagar baxdaan qalinka aad maanta haysaan ugu hagar baxdaan wanaag uga shaqaysaan ayadaa si fiigiina soo qoraya taariikhda ayadaa idin diiwaan galaysa haddaad dhibaataysaan dhibaatadeeda ka fakartaan sheekooyinka hadda bilaaban si xoojisaan ee heer dhibaato nooc walba leh na taariikhdu ayada idin soo qoraysa madaxdeena qaranka mas'uuliyiinta ugu sareysa sidaasaan leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka waxaan leeyahay Galmudug ma aadan imaan sidii lagu magacaabay mudane gudoomiye Koonfur Galbeed kula ekaatay soo booqo halkan waxa ka jira goob joogna ka noqo intaasna waxaan rabaa inaan madaxda qaranka agdhigo waxaan rabaa halkan inaan ayagana talooyin ka siino reer Galmudug qaybo kamid ah oo senataro iyo ugaasiyo ku fadhiya teetalkood oo runtii maalin la arko hadal xanaf leh oo abuuri kara qalqal oo Galmudug aysan baahi u qabin ayagana aan teetalkooda ahayn iyo munaasabadooda ka hadla waxaan rabnaa inaan idin raahno walaayaalow Galmudug waxaad ka soo gashaan koonfurta Galmudug iyo bariga Galmudug macna ma sameynayso inaan hebel iyo hebel iraah hal tuulo oo aad hal saac nageyn kartaan gacanta kuma haysaan waxaadna 24 saac ku waabariisataan kuna bariisataan guri daaqaduhu u furan yihiin mukayfna ka shidan yahay 8 bilood waxaad joogtaan ayadoo aad sulxiina miidiyaha u yeertaan ee hadalla xanaf leh ee anwaac badanaa loo caasiyoobaa caasinimo salka ku hayn kara amniga iyo sharaftaad u timideen iyo soo dhaweyn inaad ku caasiyowdeen tusaale u noqon kara adinkoo ka hadlay habeenkiina waxaad ku barideen guriga noocaasa oo hortiisa ay ku daadsan yahay dhiigga qalfoofta uu yaal oo dadkii amnigan Ilaahay makaniye ah waxaan rabaa inaan idin iraahdo xanafta joojiya waxa idin kamid ah rag 24 saac qabtay oo yiri xildhibaanada noocaas oo hadaysan imaan awla xaq darro lagu baxshay annaga foomkoodi buuxineen waxa idin ka qaldan inay awal ogolaanshiina ku yimaadeen in kale waxaan rabnaa inaan idin iraahno isla socotaan isla socod raalli hada meel idin ku soo dhaweeyaa joogtaan gogol baa joogtaan waxaad joogtaan gogol oo fadhiyo boqorkii 12 boqor ka soo aftirsaday guriga aad saxaafadda ku qabanaysaan dhabarkiisoo fadhiya waxa caasinimada kamida mar kamida inaad naan dhihin saaka waa hadli rabnaahe
boqorow nala toos oo nala tifaftir waxaan ku hadlayno oo deegaanku mudan yahay waxaan rabaa inaan idin iraahdo raalli ahaada ilaa deegaan aad nageysaan oo intaasoo kale lagu bari karo aad gacanta ku soo dhigtaanna reer galmudugaad tihiin walaalayaalow raalli ahaada nagana xishooda waa xishoonaynaa ma aragti li'in mana garasho li'in fadlan naga xishooda halkan waxaan rabnaa oo kale inaan qodobkiisa waafajino bahweynta halkan galabta shirka ku qabanaysa dhuusamareeb dad baa siyaasadda ku matala saxiixana ku matali jiray dowlad goboleedka galmudug ee xildhibaanada iyo xuritaankooda waxaan rabnaa inaan idiin sheegno beesha halkan fadhidaa waxay idin idmata waxaan ahaynaad la timaadeen haddaad kuraastiinna nacdeen u sii neef dhacsadoo sii wada haddii kale beeshu waa idin jeceshahay kacdoonka iyo mudaharaadka aan wakhtigiisii haysan wuxuu soo koobayana aan la arag xasiliya raalli inaad ahaataan ku soo laabataan toobigii laydinkugu talagalay oo bahdaanu idiin idmatay waxaa idinka mid a wareeggii labaad dad kursiga ku fadhiya waxaan rabaa inaan idin idhaahdo laba tirib wixii aad ku mutaysateen kursiga in laydiin celiyo wadadoodii kuma joogtaan haddaad kursiga laxaw idinku haya ku soo laabto halkan waxaan rabnaa inaan ka soo jeedino talo aan maskaxdeenna ka tuujinnay oo ciwaankeennuba ahaa oon galmudug ugu ishaarayno midnimo iyo muwaafaqo waxaan leenahay awalan warka saacadaysan iyo doorashada saacadaysan ha laga joojiyo wixii dhulka lagu gunto ayaa garabka la saaraha soomaaliya tiraahdaa waa maamaayo lama taabtaana waxaan idin leeyahay dadku wuxuu yidhaahdaa 6 bilood 7 biloodaa la fadhiyey 7 biloodoo beer darowda weeye oo aan runta laga hadlin hal bilahoo runta laga hadlaa noo qayr dhaantee ah la joojiyo marka hore tala saasaan ku soo jeedinayna marka dambe waxaan halkan kula hadlaynaa laba rug caddaa oo diinta iyo siyaasaddaba rug caddaa ku ah oo galmudug iska leh oo aan hubno inay jiirtooda cadkood uga laxu badan tahay oo aan galmudug u iibahayn oo galmudug meeshii joogta soo gaarsiido karaamada iyo inta yaroo maanta dhaqdhaqaaqaysa ilaahay makaniyey inay soo gaarsiiyaan waa macallin maxamuud sheekh xasan faarax iyo maxamed axmed geele ducaali xaaf midooba wax kasta ee bini aadan kari kara ku midooba galmudugna u midooba talada galmudug iyo tawfiiqda galmudugna halkaasay ku jirtaa aan ka ishaarayno fadlan waxaan idinka codsanaynaa codkeenna inaad aqbashaan qofka ilaahay tawfiiqda u soo dhiibayo iyo qolada u soo dhiibayo iyo saacadda ilaahay tawfiiqda soo dejinayo amarka alle weeye waxaan aaminsannahay inay galabta eragaas la socoto tawfiiqdii galmudug waxaan rajaynaynaa oon ishaaraynaa haddaad u midowdaan galmudug hadda samata baxda mandatekeeda markay dhammaysatana loo soo xiiso dhismaheeda ee cid walba danteeda iyo biraadeeda ka hesho oo resourcekeeda la soo baxdo inay soo istaagi doonto waxaan rabaa inaan qodobkaa ugu dambayn idhaahdo waxaan maqlayay senator dhahaya 10 beri ka bacdi waxaa la soo fasaxayaa mashaariic intaasoo malaayiina ku kacaysa lafta gareenaa loo sheega mashaariic noocaasa maantana meeshu ku dambeeya waa iskala warqabnaa waxaan rabaa ciddii laablakac laheed ee arrintaas u dhega taagtayey inaad raalli ahaataan dib inaad u mulicsataan lana ogaado cid kasta oo galmudug dan kaluhu ay ogaato galmudug deegaankeeda dhagaxdaa ku badan sida dhagaxdu u adag tahay ayaana dadkeedu u go'aan adag yahay masiirkiisana u difaacdaa aysanna ahayn meel dad hantasaabiya inta ku tuurtaan ay uga bixi karaan bacaadka waa codsanayaa waana ku celcelinaynaa waana fakarkeenna saliimka galmudug in cagta loo dhigo ugu dambayn halkan waxaan ka codsanaynaa beesha caalamka fariinna uga diraynaa waxaan codsigeenna waafajinaynaa u qaybsanaha qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya dawladaha mugga iyo miisaanka kule arrimaha Soomaaliya oo daneeya haddana taageera sida Jabuuti oo ciidamadoodii walaalahana oo aan wax eedan naga tirsanaynin nala joogaan Soomaalinimana ay ka buuxdoon ognahay wax badanna Soomaaliya ka soo martay hadda ka hor sida Turkishka walaalahana taariikhdooda aan la hilmaami karin oo ilmaha la xambaarsan yahay ay og yihiin oo Soomaaliyeed sida Mareykanka iyo Qatar iyo dawladaha la midka waxaan idin leenahay awalan talada aan soo jeedinayno oo labada odaya labada ruug caday ah aan u ishaarayno garab siiya taaniyan galmudug
galmudug waxa hadda ka hor dhacay ha taageerinina oo dawladdu sheegtay ha taageerinina waxay ahaayeen wax aan caadi ahayn waa ku celinaynaa waxay ahaayeen wax aan caadi ahayn waxaadna galmudug ku hadlay karin wax aan idinka mudnayn inaad budget ku siisaan waxaan idinka codsanaynaa inaad taladeena taageertaan una qaadataan inaan dawladdu maamulkii ay sheegtay inuu baarlamaan yeeshay oo gudoomiye yeeshay oo ku xigeenna yeeshay inuu fadlan kor u hayo waa rajaynaynaa inaad waxna hore u ogtihiin codsigeennana ku buuxsan doontaan taageerina doontaan wabilaahi tawfiiq